laba cunug baan dhalay labadaydu cunug kii aabahay la dhashay baan maxkamad dhexdeeda kaga qaaday xoog baa la ii sheegtay maanta waxaan haysto iyo waxaan gacanta ku hayo midna ma jirto ummadda Soomaaliyeed xuquuqul insaanka ummadda Soomaaliyeed dawladaha caalamka mid walba waxaan codsanayaa codsi wata arrintan in wax la iga qabto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا كما حكى الله يا أمة الصوماليات ملكست جوجان ضل يدبدبا وحنا هاي كبر صوماليات وحنا كبر آتو دباتيسن وحنا هاي كبر اسمها محمودة وحنا كبر اسمها محمود وبعد البهنتاء وقيس كما دحوينها وحنا يدعينا حسن محمد بريء حسن ولس وحنا جوجان مقالة قحرود وحكى الله يا دباتين متشل سنة يسوي ستين aan inta dadka iska sugaayay wax isoo socda ay wax kala tamina aysan jirin sababta ay tahay hooyaday oo iga xiran muddadaas kuna xiran lacag deyn oo go'day muddo 5 sano muddada 5 sano ah hooyaday waa Ismaan Maxamuud waa Bah Yaaqub waa Xasan Sharmaarka waa Axmed Xasan waa dadka ugu magac dheer dal iyo dibadba jooga wax cida oo wax iskaga qabatay oo noo timi oo arinta naga caawisay ma leh wax dadana anigay leedahay وحدة أو كلا إلهي مجرته لبعض قلا كوا عن كدشة أو بعض البنتين يكوا به يعقوب تاي كدلتي لبعض هو إسكت تورين سببت أي تيسير أوجد لعكت دين توقفك بالآدم كدين تواقف قضاء لكن تتكوى الله كعوان اللوجر مدام وحكعي وحجر مدام مجرته وحبس كل بغض ما أرك وحجرابا ما أرك intaas ay taan si walba u socday qofka bini'aadanka ahi dhibaato walba ay la kulanto dadkooda iyo ehelkooda iyo Soomaali weyn baa wax u qabata marka codsigaasaan wataa sababtay waxaan ka baqayaa muddada 5 sano oo hooyaday xabsiga ku jirto waxba looga qaban waayay maanta u malaynaya inay cid kale to wax iga qabanayso midab marka sidaa darteed waxaan wataa codsi Soomaali weyn culimada culimo diinka uqaashta meel walba ay joogto in la ii kaco la ii gurmado hooyaday dad ma leh waxdada kaliya bay leedahay waa la igu nacay haday xaq abtiyaal tahay xaqay xaq tol tahay wax islaam oo noo garabaya midin ma jirto in walba wuxuu leeyahay waa madaxweynihii iyagu waxay waa Bah Yaaqub badi qolqolo wax qabatay midna ma jirto codsigaasaan wata sida ugu degdegsiga badan oo ku dhaqsaha badan baa waxaan codsanayaa Soomaali weyn meel kasta ay joogto inaan magaca Ismaan Maxamuud la igu hadlayn inaan Bah Dhulbaanto la igu hadlayn inaan Bah Yaaqub la igu hadlayn waayo midba mid buu isku tuuray naagaan ugu reer baran u ciisaabanahay iyaga xabsi ugu wada maalin walba ay xiraaya kuwii aabahay la dhashay ay xiraaya hooyaday dad mala hal reeraba iyadoo hal oday ka taagan yihiin odaygu waa indhala yahay wuxuu haysto wuxuu qaban karaa midna ma jirto